munaasabadda xuska maalinta hirgelinta qoraalka farta Soomaaliga ayna soo qaban qaabisay Akadeemiyadda Cilmiga, Dhaqanka iyo Suugaanta ayaa lagu qabtay xarunta Akadeemiyadda ee magaalada Muqdisho. Munaasabadda waxaa si gaar ah looga hadlay qoraalka afka Soomaaliga iyo markii la soo saaray wargeyskii ugu horreeyay af Soomaaliya iyo maalinta warfaafinta 21 Janaayo 1972 oo ay ka qayb galeen munaasabadaasi maamulka Akadeemiyadda, aqoon-yahanada afka Soomaaliga, bahda qoraalka iyo xubno kale. Qaar ka mid ah aqoon-yahanka ka qayb galay munaasabadda ayaa si qoto dheer ugu sheekeeyay taariikhda qoraalka afka Soomaaliga. Xogayaha guddiga afka Soomaaliga Axmed Cabdow Axmed ayaa ka sheekeeyay qiimaha maalintan. Waxaan rabaa halkan inaan si gaar ah anigoo ku hadlaya magaca xogayaha guddiga iyo magaca guddiga af Soomaaligaba uga mahad celiyo inkastoo ina hadda inala joogin wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha. Waxa ay sanadkan ku guuleysatay inay soo saarto sharci ay ku jirto 21 Janaayo inay tahay maalin qaran inay tahay oo ka mid tahay maalmaha qaran ee qaranka Soomaaliyeed fasaxay in sharcigaasi la saxeexay 2024 dabeeqadiisa insha Allah aan rajayn doono inuu hirgeli doono. Intaas kadib waxaan rabaa af Soomaaligu maanta muxuu u baahan yahay. Waxaan xasuustaa hadal nin professor maalmaha ka mid ah uu hoolkan ka yiri 6 sano ka hor isagoo af Soomaaliya adiinsa laga hadlayo. Waxaa hadaladiisa hadalan ka guntay oo mar kasta oo meel ka hadlaya af Soomaali ka hadlayaan xasuustaa ku jiray. Wuxuu yidhi af Soomaaligu uma baahno koox ama institution ama hay'ad ka shaqeysa, uma baahno wasaarad ka shaqeysa, uma baahno dawlad ka shaqeysa. Waqtigan hadda la joogo xaaladiisa marka la fiiriyo wuxuu u baahan yahay buu yidhi gurmad qaran. Yacni uu ka weyn yahay baahida maanta af Soomaaligu qabaa, baahi la yidhaahdo guddiga af Soomaaliga ka shaqeynaya, akaademiyadda ka shaqeynaysa iyo hay'adaha afka ka shaqeeya ku filan way ka weyn tahay baahida maanta afka haysata. Qof kasta oo Soomaaliya ayuu u baahan yahay maanta af Soomaaligu inuu garab istaago. Waxa kale oo goobta ka hadlay wariye Xasan Abuukar Cali Xasan Baydhabo oo ka tirsan bahda warbaahinta, waxaana uu tilmaamay sidii ay u soo dhaweeyeen maalintan dadka Soomaaliyeed. Marka waxaan u maleynayaa 27kii jamhuuriyadda waxay ahayd 8 gobol. bilihii u dambeeyay 27kii ayaa gobolada la kordhiyey. 8 gobol ee Soomaaliya ayaa magaalo kasta waxaa la sameeyey wasaaradda waxbarashada macallimiintii joogtay 50kii guriga geed hoostiisa la isugu keenay xaafadihii. Markaas hali af Soomaaliga la baro dadkii, hooyooyinkii, dhalinyaradii, ciyaalkii yaryaraa 50kii guriga meel baa la isugu keenay. mar kaliya ayaa jamhuuriyadda dhan laga wada bilaabay. banka iyo isboortiga ayaa ugu weynaa. waxaa kaloo jira in horta la sameeyo abaabul ah in dhalinyarada la isdhexgeliyo oo la isu keeno. gobol walba meel buu ku xiran yahay. shir wareeg baa la samayn jiray. ha laga soo qaada Baydhabo 200 haween haligeeyo garow shir weyne ha la qabta hamarti qaadan. kuwaas ay yimaadaan hamarti qaadan. Kismaayo ha tagaano maxay balcad ha tagaano. dadka la isdhexgeliyo abaabul ha la sameeyo. qabyaalada saasay ku baabi'i kartaa. isboortigana ha la badiyo. Professor Cabdalla Cumar Mansuur oo ah xeeldheere afka Soomaaliga ayaa tilmaamay in ay mucjiso ahayd hirgelinta qoraalka farta Soomaaliga. maaragtay 75 ka hor ama 73 ka hor ay ahaayeen dad wax qoraya in ka yar 10% ayaa 2 sano ama sanad gudihii ay gaareen in ka badan 60% ay wax qorayeen. dad ummay ahaa ayaa markiiba maartay saas ay noqdeen. waatii UNESCO ay Soomaalidu siisay maxaan ku yiraahdaa bilad sharaf la siiyey in guushaas la gaaray. muddo gaaban aad u gaaban ayaa waxay gaarsiisay heer afafka Yurub 100 sano ka qaadato. ila الآن dadka ay leeyihiin 1924 ayaan dhashay ama 2015 ayaan dalku ku soo noqday. war xisaabtaan aan maaragtay ee Ingiriisiga naga lumiyay aan iska dayno. meesha intee degan tahay qolka 24 ma degan tahay mise 25 ma Soomaaliya la waayay. iyo xarfahan maanta bajaajka
miya mise waa b waaye ma af soomaaliya la waaye marka aayar ayaa nabaad guurkii nagu socdaa inaan ka wada hortagno ayaan maaragtay nala gudboon. ugu dambayntiina munaasabadda xuska maalinta hirgelinta qoraalka farta Soomaaliga waxaa ka hadlay islamarkaana dadaalkii loo galay dowlad iyo shacabba ka sheekeeyay gudoomiyaha akadeemiyadda cilmiga dhaqanka iyo suugaanta Ismaaciil Yuusuf Cusmaan. aniga waxaan la gudboon dadaalkii fartaas loo soo maray oo aan leenahay far noo qoran dadaalkeeda soo sameeyey juhdi loo galay ayadoo weliba 3 sano loo sheegay isku dayadii ay badnaayeen isku dayga u dambeeyey oo lagu qasbay dadka inay noqdaan guddigii saddexaad oo lagu qasab oo xoog lagu hirgeliyay fartii waxay noqotay wax aan caadi ahayn. marka dadaalka luqadeenna annagoo sii wadna waxaan soo gaarnay waqti fiican. 2 akademiya hadda jirta, akademiyada gobolka af Soomaaliga iyo akademiyada cilmiga dhaqanka iyo suugaanta. dhalinyarada kale inta aruurisaan akademiyada waxay diyaar u tahay mar walba halkaan ay kusoo hortaan dhalinyarada doonaysa in aqoonta horumariyaan dalkooda wax u qabtaan diyaar baa anaga mar walba. ayagan dhalinyarada waxaa laga rabaa inay mar walba qabtaan barnaamijyo lagu dhiirigelin dhalinyarada in dalkooda joogaan. marka waxaan leeyahay hambalyo in la ogaado 21 Janaayo wax weyn waaye. anaga sanadkan xoogaa duruufaha jira dartiisa aaday hoos noogu soo gashay. xataa waxaa lagu daray fasaxyada dalka la siinayo laakiin ma aqaan sharciga madaxweyne waa saxiixay wasaaradda shaqada inay dad ku dhiirigelisaa la rabay maanta oo kale in hay-adaha dowladda la fasaxo. sharciga uu madaxweynaha saxiixay ku jirtaa oo ah sharciga maalmaha fasaxda shaqaalaha loogu talagalay. 21 Janaayo waxaa ku qoran fasaxa sharciga madaxweynaha saxiixay 21 Janaayo tahay maalinta hirgelinta farta Soomaaliga waa maalin maaragtay oo maalmaha fasaxayda insha Allah sanadkan hadday ilduufeen sanadka dambe ku buurinayna in maalintan oo kale fasax ay noqoto maalin weyn aan ka dhigno annagana akademiyadan aan meel weyn ka dhigno. Cabdicasiis Okay, Universal TV, Muqdisho. ma og tahay hal daqiiqad ayaa noloshaada bedeli karta marka xaalad degdeg ah ay timaado. ha lumin waqti, ha raadin meel kale. Emergency Siman Hospital waa ku diyaar 24 saac. dhaqaatiir khibrad leh, qalab casri ah, daryeel, naxariis iyo xirfad bal leh. Siman Hospital halka nolosha lagu badbaadiyo. wac hadda 2497.